tababarada iyo wacyigelinta xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Axmed Ciise iyo taliyaha dugsiga Jenaraal Dhagabadan ee tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye guuto Maxamed Maxamuud Sanay horinta maanta halkan ka qalin jabinaysa waxaan filayaa in la idin siiyay tababarka idinka caawin lahaa xirfadii iyo aqoontii aad ku qaban lahaydeen hawsha laba qodob oo laakiin idinka si gaar ah idinku dhanbaaje kartideedii inaad la timaadaan iyo maxaa yeelay qofka hadduu aqoontii leeyahay wax garanayo hawshuu taagan yahay laakiin si aanu daacad ka ahayn ama si aanu fahamsanaynba qiimaha wadaniyadda iyo shaqadan uu hayaa waxa ku tacalluqdo waxay noqonaysaa nin quraanka yaqaan laakiin aan ku camal falin waxaan rajaynaa inay anfici doonto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay noqon doonto niman ciidan loo aayo oo mustaqbalkooda wanaagsanaado xagga dishibiliinka xagga maxaan ku yiraahdaa howlgelinta xagga dardaaranka xagga tababarka wax walba kulli waxaana aad ugu mahadcelinaa macallimiinta iyo horjoogahii oo ka soo shaqeeyay iyo ardayda inta fiicneed oo waajibka sidoo ay qaadatay gabagabada munaasabadaasi waxaa hadal ka jeediyay kusimaha taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahna madaxa hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka sareeye guuto Maxamed Sheekh Madoobe idinku nasiib baad leedihiin aniga maalintii aan tababarka la ii soo xiray 50 sano ka hor meel baraf dhaxdiisa oo gacmaha iyo dhagaha kagay ayaan leegu soo xiray idinkana maanta alxamdulillah wadankiina adoo joogay kuleelba tababarkeeda idinku soo xiray taamicneeda maxay tahay 50 sano ka hor waxaan u maleynayaa nimankeena bari meesha ay joogaan macallimiinta mooyaan bunay iyo hadii ii soo dhawaadaan mooyaan kale wax dhashay ma lahan laakiin eray maalintaas macallinkeyga yireen xasuusanahay muxuu ahaa dhiigga ka baxa waqtiga tababarka wuxuu badbaadiyaa dhiigaaga dagaalka goobta dagaalka markaan hal heeskaas ku dhaganaada waa muhiim هذا أصله محل جودي بايا محل جو كريدينيا تابركن كفنا معوها وبدبادة ذادي وايو هذا سيف عن نقطة برتبيشة أو سيقولا وصاب حلو بريتو قابت دجالك كم فشل ميشك waxaa joogtaa gudaha dalka iyo dibadiisa uga socdo tababaro ay qaadanayaan saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ujeedkoodu yahay in kor loo qaado aqoonta iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Muuse